بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داودي الملك استاجوكتان كسو دوادا برنامج كيني دور جوكتا برنامج كيني دور جوكتا آلابا وحين كسو قادنا موقاله كحيسي قلينيه كواسي او طحنيال يولبه موقال كلا او بدن وانا قيبتيني سدحات برنامج كيني تحانا هاي نو سعودي كروغر national park dalka South Africa waxaynu maanta gaar ahaan ku qaadan doonaa webiga la yiraahdo Sabi ee ku yaala isla baagaasi ama meesha lagu xanaaneeyo duurjoogta waa tahay daawadayaal bal aynu bilowno barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa xayawaanka loo yaqaano harimacadka harimacadku waa xayawaanka ugu dheereeya ama xayawaanada ugu dheereeya caalamkan aynu joogno ugaarsigiisuna wuxuu u cajiib badan yahay si aan la filayn waxa uu ka ugaarsadaa marmarka qaar webiyada waxaanu ugaarsadaa isla yaxaaska oo isaguna ugaadha badankeeda halkaasi ka ugaarsada waxa uu doonayay inuu ugaarsado doofaar ka cabayay webiga Sabi balse markii uu ku dhex dhacay isla isaga laftigiisa waxa isha ku hayay oo ugaarsanayay yaxaaskii waxa uu kaga baxsaday harimacadkaas farcididood waxaanu ku sigtay inuu yaxaasku halkaasi uu ku cuno oo raashin u noqdo weli waxaynu joognaa Sabi River balaynu eegnay makana isla yaxaaska ku jira Sabi River oo markani ay soo babacdigeen raxan libaxya raxantu waxay doonaysay inay qabtaan yaxaaskaasi balse umay suuro gelin waayo yaxaasku marka uu joogo dibadda haddii uu waxba isagu qaban kari waayo waxa uu ku noqdaa biyaha hoostooda arkani waxay soo hanjabayaan mid ka mid ah yaxaasyada goobta ku nool ama Sabi River ku nool kaasi oo uu doonayo inaanu ka soo bixin webiga halkani waxa taala oo la isku haystaa waa jeertaasu iyadu sideeda ayay u dhimatay ee waxba meydilin balse libaaxa oo gaajaysan awgeed ayaa isaguna soo galay goobta waxaanu doonayay inuu cunto ka dhigto jeertani balse waxa meesha isku haysta waxa weeyaan waa yaxaaskii iyo libaaxa libaaxu dirqi ayuu kaga baxsaday waa laba aar oo walaala ah oo mar walba isku lamaan oo midba midkooda kale haddii uu ka maqan yahay
aanu waxna ugaarsan karin, nabadna aanu dhulka u joogi karin. balse iyagu markiiba waxay ka yaaceen goobtii waxaanay ka baqeen yaxaaskii. labadan aar mid ka mid ah ayaa waxaa soo gaadhay dhaawac, waxaanu qabsaday caloosha bahalka loo yaqaano yaxaasku, halkaasi oo markuu soo dhuftayna uu nabar weyn u gaarsiiyey. webigan la yidhaahdo Sabi River waxa uu leeyahay khataro badan, kuwaasi oo ugu horeeyaan yaxaaska. marka ay u tallaabayaan ama ka tallaabayaan webiga, ugaadha kale waxa ay ku jiraan khatar. aararka tallaabayay waxa ay galeen khatar, waxaana halkaasi lagu qabtay mid ka mid ah aararkii tallaabayay. aarkii kale ee la socday waxa uu isku dayey in uu ka rido, balse may suurtagelin inuu wax ka qabto. yaxaaska webigan ku nool Sabi waxa weeyaan yaxaas muddo badan ku noolaa, aadna u xajmi waaweyn, oo isagu ugaarsada libaaxa iyo harimcadka iyo shabeelka iyo waraabaha iyo yeeduurtaba. dhammaantood waxa la wixii ka abaya webigani uu ugaarsadaa. waxaanu ugu dambayntii ugaarsaday mid ka mid ah harimcadyada. harimcadkani waxa uu u noqday maanta yaxaaskii cuntadiisii, taasi oo uu yaxaasku wixii uu qabto maalintii ma cuno, isla maalintiiba wuxuu dabadda ula soo baxaa marka uu gobolku dhacay madoobaato, waxaanu ku cunaa hareeraha webiga, balse inta uu baktiyo ayuu meel hoose u geliyaa. wax kasta oo nool oo adduunyadan jooga marka ay biyaha ku dhacaan ama biyuhu liqaan 24 saacadood ka bacdi ayay biyuhu soo tufaan, haddii waxaasoo ay yihiin meyd ama ay naftuba ka baxday. balse inta ka horeysa isagu marka uu maalintii ugaarsado, habeenkii ayuu dibadda ula soo baxaa, halkaasi ayuu ku cunaa, balse isagu biyaha dhexdiisa yaxaasku waxba kuma cuni karo. waa tahay daawadayaal, qaybteena saddexaadna intaas ayaynu kala gudbi doonaa. inta aynu barnaamijka lamida ku kulmi doono, waxaan idin leenahay dhammaantayo nabadgelyo.